بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد دمان ولا الله دابنا يملو بجوكتان وسلامتهن وبرنامج كيني ليبانتا جوركا قيبتا طبانات ما أنتو حنوغا هاد لدونا دولا إدمو جعيلك لمعناها شيخنا إله سبحانه وتعالى قرآن كيسوحو كليها وجعل بينكم مودة ورحمة محيكا لك انت عيداس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما بعد horta aayadaasi waxay ku jirtaa suuratu الروم waana aayada 12 يقول الله سبحانه وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة والرحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون إلهي آيات كاسوحو كجاه الله سبحانه وتعالى عظمة إلهي يوينك الله وحيابها لجو أقوان صدا كاسو إلهي وحنا شيء وحيابها عظمة الله يوينك لجو أقوان صدا وحاكم ذا إنه آدم يحواء إذن كأبوري وآدم والله وحواء كأبوري فين نبي آدم ولتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة وحماشا كتشر صدح قضب ورب الشيخ سبحانه وتعالى قضبكم هذا وحالي السكن وانا حسلوني إيا اطمئنان إيا دقنان قضب كلماتنا ومودة موددنا وشعيل إيا حبي إيا ورحمة إيا النحريس قلبي كدبنا حبنه أي ترجميان صدح ذا الرماد بالله كل شيء سبحانه وتعالى صدح ذبنا وحي سلويهين أساسيهين غير كوناكسن الدنيا إلى سعادة يقول يلي بنا يكون هذا الله أكبر شيخنا جعل كلامنا هل كي أي كبلا بنيسا جعل كلامنا وحي كبلا بنيسا عقد جمرك للريدو وفرحة آذوين بارك الله لكما وبارك عليكما هل كأي كبلا بنيسا جعل كوضا رنتا جعل كرنتا وحو كبلا بنا يا قارت وقف والبقو أركو قفك كلا قيمها إيا وناقة وأوقف اليو جعل كوحو كبلا بنا يا قف والبقف كلا مركو أركو سيدو أوقف صبريو سيدو أوقف دل قادنيو وحو سينيو سيدو أوقف صبريو سيدو أوقف دل قادنيو سيدو أسو دوينيو سيدو أوقف ترازوليو سيدو أوقف كالسوية هاي سيدو إيثارك إيا الدوريتانك أوقف سمينيو sidoo ugu muusoonayo sidoo ugu qoslayo sidoo kor ugu qaadayo sida agtiisa uu ka yahay yaani qiimaha iyo darajada uu qof walba qofka kale uu ka joogo markuu qofkan arko huna ayu yazdadu alhub jacaylkuna mar walba uu sii ziyaadaya jacaylka lamaanuhu waxa weey waa silsilada waa artasaas isku taxantahay midba haysataa mar walba ay silsilada timaado jacaylku waa kordhaa mar walba ay silsiladkeeda jacaylku waa kordhaa waad xanuunsatay waan ku daaweeyay waan ku naxariistay xubbi baan ku muujiyay waad gabadhi caada ku dhacday waxaan ku iri lixda bareeda caadada qabto aniga guriga ku qoran aniga mas'uuliyadda qaadaya xaamilay noqotay waan garab istaagay aabaheed baa dhintay waan garab istaagay dhib baa ku dhacay waan garab istaagay waa silsilad marka noocan oo kala ah idan xubbiga iyo jacaylku wuxuu ka bilowdaa hadba marxaladda la taagan yahay qofka kala aragtida uu ka qabo iyo sidoo oo la dhaqmo aad sheekhana miyaa loo baahan yahay qofka jacaylka laamaanihiisa inuu dadka u sheego uu dhaho waa jeclahay sidaas nabigana calayhi as-salaatu was-salaam waxa la weydiiyay dadka yaad ugu jeceshahay waa su'aal ay saxaabadu nabiga weydiiyeen oo ajaa'ib badan yani hadayna saxaabadu weydiiyeen aniga hada su'aasha imaada weydiiseen ama hadaad i weydiisana jawaab oo ma heleen laakiin saxaabadii khayr oo dhan nooga hormartay ayaa waxay noo soo guuriyeen axaadiis saxiixa ah iyo siiro sugan in nabiga su'aasha la weydiiyay sallallahu alayhi wasallam waxaan sugnaaba waa jawaabta nabiga jawaabtaas oo jawaab waa adiga su'aashaada nabigana calayhi salaam wuxuu yiri Aisha ugu jeclaa Allah ala tool yani saxaabadu dhan baa joogta wuxuu yiri Aisha ugu jeclaa ayuu nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam markii muusan ka xishoon abadan ala tool dinku inuu yiraahdo xaaskaygan jeclahay waa wax aad u wanaagsan sharaf loo baahan yahay way walidaalika ayaa maanta waxaad arkaysaa rag aad u fara badan oo xataa xaaskiisa aan magaceed ugu yeeri karin oo xataa ka xishoonay inuu jecel yahay حتى كحشون إنه سوق لا آذو وحلا سوء أذيقه حتى كحشوني يعني حاسك أقوى مرض هذه وهي الله سبحانه وتعالى محقولان يسكير الله أكبر هن لباس لكم الله وأنتم لباس لهن لربي بيسويهين
marka furaanadaada mid ka tagi kartaa may masuud dharkaaga daakhiliga ma ka tagi kartaa bal dharkaaga daakhiliga waa dharka jirka nacfigiisa qaba saliid hadii la mariyo asaga qaadanaya haduu dhiidan asaga qaadanaya labada qof saas isku yihiin sida daraadeed ayaa ninku inuu yiraahdo xaaskayga waan jeclahay waa wax aad iyo aad u qiimo badan ayadana waxay u noqonaysaa wax aad iyo aad u fiican wal ajiib saxaabadu waxay dhaheen ragga yaad ugu jeceshahay raggaan u jeednaay nabigu meel dheer ma aadina haddana Aisha agteeda ku dhuftay wuxuu yiri aabaheed macnaheedu waa maxay Aisha mar way farxaysaa mar ayada ahayd marka labaadna arrin farxad naam waxaad u qiimo badan marka sheekhana jacaylka lamaanaha maxaa ziyaadiyay jacaylka lamaanaha waxa ziyaadiya geedkan fiiribal geedkan waxa ziyaadiya geedkan muxuu u qoyan yahay geedkan muxuu caleen u bixiyay geedkan muxuu midho u bixiyay geedkan maxaa loo harsanayaa geedkan muxuu u qurux badan yahay indhaha ugu roon yihiin ha inta hadad iga jawaabto anata kala waa kaaga jawaabaya idan waa la waraabiyay xididadii baa dhulka galay xididadii baa biyo cabay kadib uu geedkani baxay kadib uu laama sameeyay midho ayuu bixiyay dad iyo dunyaba ay ku noolaadaan horta bisla fahamnay waraabin u baahan yahay qodobka waa qodob muhiim ah weeye idan jacaylka waa la waraabiyaa hadda biyahan dhulku waraabiyaa jacaylki geed baan ka soo qaaday maxaa lagu waraabiyaa ibtisaama lagu waraabiyaa Allah muusood baa lagu waraabiyaa qosol baa lagu waraabiyaa gacan furan baa lagu waraabiyaa nadaafad baa lagu waraabiyaa cadar baa lagu waraabiyaa cadar araf idgoon waxaa lagu waraabiyaa tan caloosha oo la geliyo cunto caafimaad qabta oo cunto aad u wanaagsan oo qofka wax tar u ah ayaa lagu waraabiyaa waxaa lagu waraabiyaa yani ay akhlaaq kasto wanaagsan subhanallah ay akhlaaq kasto oo wanaagsan ayaa jacaylka kor u qaada waxaana hoos u dhiga dabcan ay akhlaaq kasto xun hadalka macaan baa kamida fiirada quruxda badan baa kamida labada qof subhanallah soo geedkan kuma dheen geedkan marka fiiriso soo tanbahir soo ma farxaysid fakadalika labada isjecel markuu ninka caawa aad fiiriso geedkan hadda markaad fiiriso dabcan soo kuma farxaysid labada qof marka isfiiriyaan jacaylka la in fiirintu lafteedu xaaskaaga oo hor fadhida marka si fiican u fiirisaay waa qayb jacaylka kamida qalbigeedaad gelaysaa adoo la hadlin aywa adigoon la hadlin amaanta kamida markay maanta dhar qurux badan soo qaadato markay cunto fiican ku kariso marka aad marti intaad u yeedho ay martidii si fiican kuugu soorto markay sariirta ku gogasho sariirtii markii xagga laga soo jeediyo xagga taalay kursiga xagga la geeyo ubixi xagga la dhigo waxa weeye dhammaan kullu dalika waa jacaylka waxa ziyaadinay hadiyada kamida نبينا صلى الله عليه وسلم حديث لحجيستي وحله تهادوا تحابوا وإسوا هدية حاسكاga markaad maanta inta suuq aado aad ma taqaana walow ubax yarna Allah ka dhigay ma aha dadku waxay u fahmaan hadiyadu wax weyn bay u fahmaan maya hadiyadu waa shay qalbiga xiriir la leh haba yaraatee xabad shukulaato ama xabad nacnaca oo laakiin daacadnimo aad xaaska u keentay yaa waxay ka wanaagsan tahay wax walba u sameeyay marka lamaanuhu markay doonayaan in ay geedka jacaylka waraabiyaan haddana ilaalin buu u baahan yahay bil munaasaba hadda geedahan hadaan laga jarin qashinka laga jarin hadaan ayaga la qurxinin hadayna dawlad ilaalinin geedahan sida ma noqonayaan may amni bay u baahan yihiin ha jacaylku amni u baahan yahay okay horta geedkan ma ii sugtay inuu amni u baahan yahay caawa hadii dad gooya laga ilaalin aadiyad sax waxa laga ilaalinayaa dhibo dhan ba laga ilaalinayaa marka qaarkood geedaha wala buufiyaa caafimaadkooda lagu dadaalaa geedka jacaylkuna wuxuu u baahan yahay in la ilaaliyo intaan soo sheegnay oo dhan in lagu ilaaliyo lagana ilaaliyo wax dhib u keenaya laga ilaaliyo wax biyihii ka saara oo ka nuuga oo qallajiya geedkani wuxuu ku taagan yahay sooma xididadii sooma iyo biyihii haddii biyihii laga waayo haddii biyihii geedkan uu qaadan waayo soo geedku qalali maayo hadduu nabadgeliyo waayana soo la goosan maayo marka waa in la ilaaliyo oo saytaa loo ilaaliyo aad iyo aad ilaahay subxaanahu wa tacaala anaga dhig huwa jacaylkaas ku noolaada allah idin xifdiyo meel baa joogtaan wassalaamu calaykum wa rahmatullahi